waxaa runtii sharaf weyn oo maanta inaan qalinka ku duugnay qaybtii hore ee mashruucii World Bank ina siiyay ee ahaa 140 mashruucii 140 ahaa oo aan horena uga wada hadalay oo ahaa abaalmarin aan oran karo shaqadii aan soo qabanay ee ahayd geedi socodka deen cafiska waan muddo dheer ku soo jiray 80kii u horeeyay oo madaxda World Bank soo ansixisay ayaan maanta saxeexnay waxa markaa maanta bilaabmaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 80 milyan sida agaasimahoodii ku sharaxay ahayd waxay u kala qaybsan tahay dhaqangelinteedii baynu bilaabayna maanta hadii Ilaahay yiraahdo waxa ku xigi doona 40 milyan oo mashruuca oo u adkaysiga dhibaatooyinka iyo biyaha iyo education iyo health iyo soo galay hadii Ilaahay yiraahdo ayaa iyaguna ku xiga 20 milyan oo kale oo iyaguna quwadeynta dawladda shaqada wada ayaa ku xiga 140 kaas horta halkaas ay ku dhamaanayaan 140 kaas waxay ahaayeen shaqadii aan soo qabanay ayaa layna yiri si fiican baad soo qabateen ee geedi socodka ayada cid walba ka qayb gashay ayadoo madax inoogu tahay inoogu yihiin madaxweynaha iyo prime minister waxaan filaynaa waxa weeye maalin dhaweydna waxa saxinoo kale lacagtii EU ina siisay oo 100 milyan ahayd euro 130 meelaha ah waxa soo dhan waxa ka marqaati kacayaan waxa weeye shaqada aan soo qabanay hadaan tahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed hadaan nahay dawladda iyo dalka oo dadka wada socda shaqadan soo qabanay way ka marqaati kacaysa xaqiiqadu waxa weeye hadaan sidaa ku sii socono inaan meelo waaweyn gaari doono oo adduunyada la tis qaadi doono adduunyada la falgeli karo aan inaga lafteena wax qabsan karo waxa kale oo ku daraya halkan anoo ka faa'iideysanay fursaddan shalayto waxa la approve gareeyay maahan budgetku inuu kacayo waa aragteen waxa soo dhan waxa mahadeeda iskale waa ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee nagala qayb galaya geedi socodka in ama deynta la inaga cafiyo ama dalkeenii dhaqaalihiisa la soo noqon hadii beedma waxa filaynaa sanadka soo socda inay wax ka wanaagsan ima dooraan laakiin anagu sidaan always yiraahdaa waxa weeye buur aad u dheer ayaan fuulayna buurtaasina lugaha ku daalaya wad haraadaysa dhibaatooyin baa ku qabsanaya laakiin dusheeda buurta ayaa biyo yaalan haraadko dhan ka beenaya taasina waa markaa inagu isku filaana weeyaan dhaqaalaheenu inagu waa soo kicina umba adduunyada kale wax ku qaban kartaa marka aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay waxaan gudageli doonaa markaa hirgelinta mashruucan baan oo cid walba gaarayo dadka Soomaaliyeed la siiyay halkana lama siin meel kale dadka ummadda Soomaaliyeed baa lacagta ayaa la siiyay hirgelinteeda dhaqangelinteeda fulinteeda ayaan ka wada qayb galaynaa waana ka wada sheekaysan doonaa sida loo hirgelinayo cid waliba waa ogaanaysaa shilin waliba iyo dollar waliba halku ugu baxay marka aad baan maanta ugu faraxsanahay